ciidamada amniga ee gobolka Bari ayaa fashiliyay qarax miino oo la doonayay in kooxaha nabadiidka ah ay ku haligaan shacabka Soomaaliyeed ee Puntland gaar ahaan suuqa weyn ee bartamaha magaalada Boosaaso taasoo ay u suurta gashay xuraan badan iyo xog badan ciidamadu ay heleen kadibna ay fashiliyeen qaraxaasi sida uu sharaxayo gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacees Dhado. salaan kadib saaka halka waxaan ugu nimay howlgal xalay ciidamada qalabka sida dhammaantood ay ka qayb galeen oo ah qarax la dhigay soonaha baxayo halkaas oo ah meesha ugu population-ka badan subaxdii oo ay rabay saaka inay ku qarxiyaan iyadoo checkpoint loo ah qaraxaas xalay waa lagu guuleystay wuxuu ka kooban yahay boodarkii ugu qaalisanaa ee abid wax lagu qarxiyo waxa weeye waana nooca waxa kaloo ku jiray telephone waxay ahayn kan telefonku cariyo oo telefonka laga soo waco oo meel fog telefonku uu ka soo wici karo telefonka ku jira qaraxa bira yar yar oo googo'an waa qarax noociisu uu yahay noocyadii ugu xumaa saaka haddaan ilaahay xalay howlgalka iyo foojignaanta ciidamada aan aysan jirin saaka wax kale ay meesha ka dhici lahaayeen ilaah baa nagu guuleeyay ee baale awoodda lagu qabtay iyo sida loo qabtay iyo sida aan dhib u dhicin oo loo furfuraba ilaahay baa nagu hagaayay isagaan mahad u celinayna mahadda labaad waxaan u celinaynaa ciidamadii ama sirdoon ha ahaadeen ama ciidan muqdaba ha ahaadeen xalay hawsha ka qayb galay iyo dadweynaha kale nagala shaqeeyay intaba waanu u mahad celinaynaa dadweynaha waxaanu jecel lahay waxaa mamnuuc ah oo maanta laga bilaabo mamnuuc ah bacaha waaweyn ee wax lagu qaado waayo qofkii bac buu sitaa wixiiba oo dhan baa ugu jira meel buu dhigaya uu kaga tegayaa dabadeedna waxay noqonayaan badankood qarax oo dhagarqabayaashu ay dadka rabaan inay ku dhibaateeyaan waxa weeye ciidamada istriidada jooga wadooyinka jooga ama habeen ha ahaato ama maalin qof kasta oo bac madow sitaa waxa weeye waa la joojinaya waa la baaraya dadku waxa weeye ka digtoonaadeen baaha qof walbana wuxuu mas'uul ka yahay aagiisa inuu amniga ka sugo amnigu waa mas'uuliyad guud weeye waa mas'uuliyad wadareed gudoomiyaha gobolka degmada ciidamada kaligood ma laha amniga dhammaanteen waxa weeye amniga inaynu ka wada shaqeyno sidaynu hadda taaba uga wada shaqeynay runtii si muwaadinimo ah si muuqata ayay ciidanku hawshooda u guteen waxaan u mahad celinayaa taliska qaybta ciidamada BSF oo runtii xalay arrintaa inta ugu badan qabtay ciidamada BNBF-ta oo iyana goobjoog ahaayoo hawshaa wax ka qabtay dhammaanteed waa u mahad celinaya saraakiishii iyo ciddii hal abuurka lahaydna dhammaan waxa weeye sidaan madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha u sheegay dhammaantood waa dallacsiinaynaa qof kasta oo dalka waajibkii lagu lahaa gutaa waxaa khasaba inaanu ku gulnayno oo gulno lagu siiyo waxay noqon kartaa gulno dhaqaale iyo mid darajo intaba waa isugu daraynaa haddii ilaahay idmo waadna arki doontaan dadweynaha waxaanu jecel lahay in amniga nala kala shaqeeyo oo amniga si xoogan looga shaqeeyo sidaynu haddaba aynu uga wada shaqeynayno xalayto runtii waxaan oran karaa waa tahluuko kale bay damacsanaayeen ilaahayse ma ogolaan waxa weeye qaraxina waa aragteen iyo wuxuu ka kooban yahay boodarkii inta ay culayskiisu yahay ciidamo geesiyiina baa operationka fuliyey isagoo aan waxba ayn ka dhicin waxba uusan cid yeelin saxaafaddana waa annagaa usoo bandhignay waxaan rabnaa habeen iyo maalin waxaa laga shaqeynayaa amnigii in amnigiina nala kala shaqeeyo walow aanu dadka aada iyo aada ugu mahad celinayno oo aanu xogna helno aynana hagaan ciidamadana la shaqeeyaan laakiin waxaan leenahay laba jibaala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم gudoomiyaha gobolka gudoomiye ku-xigeenka taliyaha ciidamada traafikada gudoomiyaha maxkamadda shanta gobol saraakiisha ka socda qaybta booliska gobolka Bari bahda saxaafadda idin ahaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh maanta waxaan rabnaa inaan halkan kusoo bandhigno howlgalladii geesinimada lahaa ee ciidamada booliska ee gobolka Bari iyo dhammaan laamaha kale oo amniga ka howlgala magaalada Boosaaso ay xalay soo qabteen
waxaan rabaa inaan u bogaadiyo dhammaan ciidamada ka howlgala magaalada Boosaaso sida habsami socodka leh wanaagga leh xilkasnimada leh mas'uuliyadda leh ee u gudanayaan waajibaadkoodii dawliga ahaa aad iyo aad baan u bogaadinayaa runaantii waxa weeye sidoo kale cadawgii qorshayaashii markii falalkii dilka ahaa ee muddooyinka ugu dambeeyay magaalada Boosaaso ka fulinayeen markii waxa weeye ka hortag la sameeyay baaritaan xoog la sameeyay kadib waxa uu wareegay qorshayaal kale iyo dadka si kale u dhibaateeyaan tiina waxa weeye ciidamada booliisku xalay waxay ku guuleysteen inay soo